السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا جانك مالمها waxaan idin soo gudbinaynaa qiso aad u xiiso badan. Qisadan ayaa waxay ku saabsan tahay akhlaaqda iyo tacaamulka wanaagsan sida ay saameyn ugu yeelanayso nolosheena. Qisadan ayaa waxay ku dhacday nin waayeel ah. Ninkani ayaa wuxuu ku noolaa meel tuulo ah. Ninkani ayaa mar waliba dadka wuxuu kula tacaamuli jiray dabeecad iyo akhlaaq wanaagsan. Sidoo kale wuxuu ahaa nin naxariis badan isla markaana dadka masaakiinta u kaalmeeyo. ninkani ayaa shaqadiisa inta badan waxay ahayd daaweynta dadka wuxuuna dadka ku daaweey jiray waxyaabaha loo yaqaan mudaawaadka. ninkani ayaa inta badan sidoo kale wuxuu garab qabi jiray dadka masaakiinta ee fuqarada ah wuxuuna mar waliba isku dayay jiray inuu qanciyo isla markaana qalbigooda farxad u geliyo. habeenada kamid ah ayadoo xilli saqdhax ah ayaa gurigiisa waxaa soo garaacay nin. markaasuu albaabka ka furay. ninkii ayaa ku yiri niyahow waxaan ahay qof musaafira sahaydii ayaa go'day waan dhibaataysanahay wax raashin ma wato waxaan ka doonayaa inaad marti geliso isla markaana aad soo dhaweyso. odaygii ninkii waa uu soo dhaweeyay wuxuuna dejiyay gurigiisa. 3 maalmood ayuu marti geliyay halka ayuu ku cuniyay oo ku cabay wax dhibaato ah ma uusan qabin. ninkan ayaa maalin wuxuu ku yiri odaygii waxaan ka doonayaa inaad ii fuliso hal codsi. kaasoo ku yiri muxuu yahay wuxuu waxaan ka codsanayaa inaad qofna ii sheegin inaan halkan joogo. odaygii ma uusan ka shakin ninkii balse codsigiisii ayuu u yeelay. ninkii markii uu 3 maalin dhameystay ayuu habeenkii afaraad ayadoo uusan ka warqabin ninkan gurigii ka safray waana uu iska tagay. odaygii markii uu waagu bariyay ninkii ayuu raadiyay wuuna waayay. wuxuu isiri maadaama ninkan marti u ahaa isla markaana oo musaafir ahaa laga yaabo inuu safarkiisii iskaga laabtay waxba uma uusan arkin balse waa iska daayay. odaygan ayaa inta badan wuxuu ahaa nin safar badan wuxuuna aadi jiray magaalooyin dheer isagoona markaas ka soo iibsan jiray daawada uu dadka ku daaweynayo. safar ayuu ninkani galay wuxuuna raacay doon isaga iyo dad fara badan. markii dhex sii marayaan ayaa doontoodii dilaacday markaas waxay bilowday biyihii inay soo galayaan. waxay isku dayeen inay sameeyaan balse xal way u waayeen. way fikireen waxaana u soo baxday inay dib u soo laabtaan balse markii ay qiimeeyeen masaafada ayay waxay ogaadeen inaysan dhaweyn inay ku soo laabtaan tuuladoodii. ayaga oo xaaladda ku soo yaaban ayay waxay meel dheer ka arkeen doon soo socota. markaas ayay aad u farxeen waxayna ku fikireen inay doontaan badbaadi doonto. doontii ay u soo dhawaatay markii agtooda timid ayay waxay arkeen doontii inay tahay doon ay wataan dad burcad badeed ah. nimankii doontii watay ee soo degtay waxayna bilaabeen dadkii dhacayaan xoolihii ka qaadanayaan. markaas dadkii xoolihii ka furteen iyagoo xaaladda ku jiro dadkii dhacayaan ayaa ninkii madaxda u ahaa wuxuu ku yimid ninkii odayga ahaa. markaasuu fiiriyay markaasuu wuxuu ogaaday ninkani inuu yahay odaygii marti gelinayay. markaasuu qayliyo wuxuu ku yiri dadkii tuugada ahaa joojiye waxaad dhacaysaan u soo celiya dadkan xoolahooda. dadkii waa yaabeen xoolihii ayaa loo soo celiyay dhamaantood isla markaana wuxuu ku amray ciidankiisa inay doonta hagaajiyaan. doontii ayaa la hagaajiyay wax walibna waa loo diyaariyay. kadib safarkoodii ayay ku soo laabteen. dadkii aad ayay u yaabeen markaas waxay isweydiiyeen sababta keentay in nimankan tuugada ah ay xoolaha soo celiyaan isla markaana doontoodii hagaajiyaan safarkoodana ay soo samata bixiyaan. ninkani muddo ka bacdi ayuu wuxuu u sheegay in ninkani uu maalin maalmaha kamid ah u soo martiyay tuuga ah isla markaana uu marti geliyay si fiican u soo dhaweeyay. qisadani halkan ay ku eg tahay hase yeeshee qisadani waxyaabo badan ayaan ka faa'iideynaa. marka hore qisada waxaan ka faa'iideynaa inay wanaagsan tahay mar waliba inaad tahay ruux akhlaaq wanaagsan isla markaana dabeecadiisu dadka soo jiidan karaan. sidoo kale waxaan ka faa'iideynaa naxariista iyo tacaamulka wanaagsan faa'iido leedahay. ninka odayga ah markii uu soo martay ninkani aad ay u soo dhaweeyay uuna marti geliyay. hase ahaatee maanta wuxuu sabab u noqday in dadkan dhan uu badbaadiyo isla markaana naftoodii iyo noloshoodiiba ka soo samata bixiyo dhibaatada ay ku dhaceen. sidoo kale qisadan waxaan ka faa'iideynaa in mar waliba ay wanaagsan tahay inaad tahay ruux naxariis badan. maxay ninkan naxariistiisii iyo dadkii u dhimri jiray ayuu wuxuu ku kasbaday maanta
inuu noqdo ruux meel weliba laga soo dhaweeyo, xitaa dadkii tuugada ahaa ay soo dhaweeyaan. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. haddii aad ku cusub tahay jalka maalmaha, fadlan subscribe dheh, gamalkan riix si kuu soo gaaraan waxyaabo cusub aan soo dhigi doono. mahadsanid.